waxaa shalay oo isniina garoonka Minun Stadium degmada Walaweyn ka furmay horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta waxaana sanadkan ka qayb galaya 10 kooxood oo ka kala socda xaafadaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana kulanka ugu horeeyay lagu daafuray kooxda Turkish oo difaacanaysa horyaalka iyo kooxda Midnimo ciyaartan oo xamaasad badneyd ayaa waxaa garoonka buuxdhaafiyay taageerayaasha labada kooxood ciyaartan ayaa waxaa ka soo qayb galay isku duwaha wasaaradda ciyaaraha ee dhalinyarada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Walaweyn macalinka xulka kubadda cagta degmada Walaweyn iyo mas'uuliyiin kale isku duwaha wasaaradda ciyaaraha ee dhalinyarada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn oo wareen goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo kulankan koobka horyaalka heerka koowaad degmada Walaweyn aan isku qayb galnay ma sha Allah in ka hambaliyo xiriirka degmada Walaweyn ma in ka hambaliyo sida heersar la soo qabanqaabiyaan oo gurubyada habeen walba habeen aad ka maasiyaan aad ka faraxsan aad soo dhawaayaan hadii inuu wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Koonfur Galbeed aad mar walba intii geliyaan aad garab suruna hadii wasaaradda ka wasaarad ahaan aad ka faraxsan ma sha Allah ma ilana hor socda kiib gooyn lana xiriirka degmada Walaweyn aad ka faraxsan ana gudoomiyaha sports degmada Walaweyn oo garabka isugun isku duwaha ee Koonfur Galbeed ee Aftaxsha Abuukur marna walaalkay iyo gudoomiyaha ku xigeenka Olombikada ee degmada Walaweyn ma sha Allah horyaalkii macnaha lahadan bilaawday geey garoonka suguna way qabnaa Serie C Serie B iyo Serie A geey Serie A ee furne Turkish iyo Midnimo kulliga furne geey ciyaarta meelaha roogna Koonfur Galbeed ma ka baaqaan ninka walaalkaana isku duwaha كل جاكد إسين صنبغة عوتين وجاك قيمة له لكن ما باهنا جاكدات إسين كموجودان وإلا هذا المقارغون جاكدات وذي كان صاحب كان إن جاكدي صنبغة عوتين إلا هذا إسكو دويه ووزارة السبورت بده إسكح وقبس لوالك بدنا مرقوم فرق من كباغانا إن جاكدنا ولا بين سونجي سدان ما يقول إسنتا ستون قوة يقول إسنتا بولشيت كاملة هاينا ما أنكو باهنا مركا إن isku duwaa garabka surumaan onan isku duwaa wali unishaano onan ku doona ku qaadano markaas aan ku bixi waxaan rajaynaynaa Koonfur Galbeed in isboortiga Walaweyn oo dardargeliyaan maadaama ay soo magacaabeen isku duwaha isboortiga degmada Walaweyn oo Abdifataax oo hadda aad iyo aad oo macnaa horkac sameeyay marka waxaan rabnaa in gacan lagu siiyo si macnaa wixii oo gobol Koonfur Galbeed oo isboortiga qaybta ay leeyihiin degmada in si toos ah isku duwaha noogala soo dhiibo oo isla shaqeeysan annagana isku duwahaasna waxa waaye in macnaha la shaqeeyno marka waxaan idin rajaynaynaa in wada shaqeyntaas maadaama oo hadda macnaha degmada aan furnay mini football kaasna waxaan rabnaa in macnaha in tartan loo sameeyo marka waxaan rabnaa inay gacan lagu siiyaan Koonfur Galbeed macalinka xulka kubadda cagta degmada Walaweyn oo maalmahan ku mashquulsan xulista ciyaaryahanadii matali lahaa degmada Walaweyn ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay aniga ku hadlaya magaca degmada Walaweyn ahna tababaraha degmada Walaweyn magaceyguna uu yahay Xasan Maxamed Nuur waxaan halkan ugu hambalyeynaya suduwaha kooxda Koonfur Galbeed Abdifataax Abuukur iyo xiriirka Mr. Umar iyo gudiga ila jooga waxaan leeyahay waxaan u sheegaynaa Koonfur Galbeed in ay wanaajiyaan xiriirka isboorti maadaama xiriirka isboorti uu yahay isdhexgal bulsho waxaan haynaa hadda horyaalkii lixaad ee Serie A qaybteeda 10aad Serie B oo kulli haduu Ilaahay badho waa bilaabi doonaa marka insha Allah haduu Ilaahay idin waa dadaalina dadaalkan waxaan u baahanahay in garab laga siiyo maxaa yeelay isuduwaha waxaan u baahanahay anaga wixii loo soo dhiibo inuu la imaado isuduwaha haduu nala shaqeeyo anaga shaqadeena way isficnaanaysaa marka Koonfur Galbeed waxaan ka codsanaynaa in ay ku dadaasho sidii ay noola shaqeyn lahayd maadaama ayaga ay soo magacaabeen Abdifataax Abuukur Sheekh Maxamed marka waxaan u baahanahay in haduu Ilaahay idmo ay nala shaqeeyaan anagana waxaan diyaar u nahay in aan si fiican u soo dhaweeyno horyaalkii lixaad ayaan furnoonaa waxa oo farxad ah reen leh degmada Walaweyn iyadoo kor ka isboortiga kor aad marais sanadka dambena waxaan rajaynaynaa in ka sii darto erga gasho kadib markii ay soo gabagabowday ciyaartii adkeyd kuna idlaatay barbaro aan wax gool ah iska dhalin ayaa waxa warbaahinta la hadlay macallimiinta labada kooxood iyo kabtanada iyagoo ka warbixiyay dareenkooda iyo ciyaartii xisaab badneyd ee dhexmartay waxaan salaamayaa guud ahaan dadweynaha xiiseeya isboortiska degmada Walaweyn iyo cid alaale cid isboortis kor u qaada iyo dadka soo agaasima koobkan u horeeyaan gudoonka isboortiska degmada Walaweyn dad walba oo dhiirgelin u taagan sida Abdiqani Raajis Mahad iyo dad kale oo badan
ayaan kaga mahadcelinaynaa inuu qabsoomo koobkan looga magac daray Walaweyn Premier League waxaan nasiib u yeelanay inaan noqono kooxdii u horeysay ee lagu furo koobkan waxaa la ciyaarnay dhigeena kooxda Turkish oo aan la ciyaarnay ciyaar aad u qurux badan ayagana waxay soo dhigeen ciyaar aad u qurux badan laakiin gari laba qofood kama qosliso labadeennana sidaas ay tahay hadda waxa waaye way naga wada qosolsi hal dhibic ayaan kala qaadanay sportska degmadana sida la wada filaayo qaabka hadda ku socdo waxa waaye mid horumarkiisa aad u sareeyo waxaan kaga mahadcelinaynaa inta aan soo tilmaamay aan sheegay magacyadooda magac gaar inaan sii tilmaamo ma rabo intaas ayaan ugu mahadcelinayaa inuu sii hormaro ayaan sii rajaynaynaa insha Allah maba salaamowa dadkii oo meena oo soo qaban gabiyay horyaalka degmada qaasatan meena gadoomiyaha sportska ee degmada Walaweyn Raawul iyo Abduqani oo meena barnaamijkan oo ciyaaraha oo markii oo bilaawadayaan oo la soo socdo ama soo tabiyo qaasatan mayba kale mahadnaqoba dhammaan ciyaartooyda kooxda midnimo galabta kulankii oo horyaalka liga Darfur ee Turkiga la dheelayeen championka degmada marka ma sha Allah ciyaar oo qurux badan aad iyo aad u qurux badan la soo bandhigay lamada dhinac markana meena ma sha Allah ciyaartii bareejo si gabagabowti tiidiya kale ma sha Allah intan ma kuma salaameeyay waa kooxda midnimo oo 7 sano oo kooxdan soo dheelayay marka ma sha Allah in ma rajayo waa horumar fayle iyo dadaal fayle dadaalkan iyo hadda oo meena oo kidaa furtay in si lama jibaarto magacaygu Cabdicaziz Cabdiqaadir Isaaq ahna macalinka koowaad ee naadiga Turkish maanta waxa waaye wax qornaa meesha ka dhacay barbaraan galnay marka maxalla banoonigan saab iska cadii madow iyo barbara leeyahay marka insha Allah kulamada dambe guul aan rajeynayna insha Allah mar saddexaad waxaan rajeynaynaa inaan champions degmada noqono insha Allah magacaygu waa Ciise Cabdullaahi Bini oo loo yaqaan Ciisaabi ahna kabtanka kooxda Turkish geega ma baan bilaawday horyaalkii degmada kooxda midnimo leeni wallahi aad iyo aad aan ka farxsanaa geega oo kulay banooni nasiib cad imido ito bareejo galni kulamada kala maarajayane inaan guuleysan insha Allah tada kala maarajayane mar walba ahano championka degmada insha Allah degmada Walaweyn ayaa laga dareemaya horumar sports iyadoo wada shaqeyn wanaagsan dhexmaraysa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Walaweyn iyo isku duwaa wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn taasi oo horseeday in tartan kasta ku soo gabagaboobo guul iyo gobonnimo Cabdiqani Maxamed Xasan telefishinka Koonfur Galbeed degmada Walaweyn